إلهي نوما كانوا لكن أدوك ضدك يكون وراء مالك استاجوا أدوك ده على الكيسة ورور بوقا أموري يا عبسي تا عالم كانوا كلام ده عدو ولا تالكيد هي تلذيذ هي اسمه قلكيد أي كيد يرجعوا إنا قلنا تا أدوك كانوا كلام ده إلهي مهدي ما أنت دلكينا وحضره كتير ما تشوف ساك شلي آيات تجابت تسكب وحلا بارة تلو أردي شيء دونا مدو إلى مالتي أنه سمعنا تحدث كإربار كانوا تقني إنه جوابها ذلك لا يسوق له وين ذلك إنه ما لبضن بالك يسوق له حدود وين بيننا ودولي وفرنتي لكن ما لها سعود كوبديه مرحلة قياسية أي وزارة عافمات كو حيجيسي إن لا كنترول حمضة الله في الآية عدة سنة عذر قابته وأدون كورر وستاندره مركا مالي والبا waxay soo gudbiyaan dadka wadada soo maray wadooyinka ah iyo tirada taasi waxay noo sheegaysaa wixii meel kale ka soo galay ee lagu inuu soo gala Allah ilaahay markaa ka magan galina inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoonahay gudaheena anaga waxba ka dhicin laamka meel laba ruuc caafimaadba waxaanu xalay ku soo hooyanay sida xoolaha raacada xalay maxaa lagu soo hooyay waaguna ku bariyay shalay maqribku wuxuu noo dhacay tukaraq waxa la baaray oo soo maray 109 qof dhammaan way caafimaad qabeen wax laga shaqeeyo maaray yube waxa la baaray 10 qof oo soo maray controlkii ay yaaleen baaristu way caafimaad qabeen dhahar 9 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 9 qof وجهه 540 qof baa ka soo galay dhammaantood caafimaad qabeen wax lagu shaqeeyo laga maarag berbera waxa ka soo galay 19 qof oo u badan kuruga maraakiibta baajar kama soo galin waa caafimaad qabeen markii la baaray law yacdo 138 qof baasan jara wax laga shaqeeyo laga maarag cigaal airport waxa ka soo galay 262 qof wax laga shaqeeyo laga maarag tiradaas shalay galabtii waago gobolku noogu dhacay ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodu waa la soo tabinayaa wali wax shaqo ka sameeyaan taxadirka waxaanu soo oranahay inuu isugu xidhno warka ilaa goobta ilaa madaxtooyada ilaa wasaaradda daranku inuu soo dhawaaday marka cad sabiin hore lagu sheegay dalkeenu isu furan yahay abseen wada qabnaa inuu iska wada eegana arinta marka ilaahay mahadi oo nabad qabna waxaan soo qabnaa warwar adduunka oo dhan qabo gobolkeena ka soo dhawaaday doorto waxaan magacaabay 5 wasiir oo hogaaminaya arinta oo shaqo qaran 5 wasiir oo kala aasagtiin oo hogaaminayso caafimaadku dakhliga waxbarashada awqaafta iyo warfaafinta wasiirka dakhligu dalka oo dhan iyo gobolada iyo degmooyinka saaka mas'uula marka hadii loo baahdo talaabo in la qaado culayska weyn isagu saarmaya amniga isaga haya wasiirka awqaafta dadka inta u badan ee warka gaarsiisa culimada ee masaajidada ee waxyeelana isaga isgaarsiinta laga raba inay wasaaradda caafimaadku isagana hawsha u dirto uu fuliyo wasiirka waxbarashada waxa ay in ku dhow 60 kun oo arday 600 oo kun oo arday 5 milyan arday dadka u badan buu haya oo ku xireysan meel xidhan ardaydana kaasada qaar bay 80 oo fariistaan boodina jira tiro badan oo laga yaabo habeenkii inay control meel oo seexdaan xilkoodu waa saaran waxa kale oo inoo xireysan maxaabiistii oo meel ku xirsan oo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurku tallaabin waxa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxa u baahan ciidamadii oo xiriir ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxa ka badan inta qayasha in farishtiisa ku timaada in warsuhayn oo u baahan in is ilaaliyaan
adduunka oo dhamay wuxuu isku raacay ma laha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa istabiska leeyahay laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka la joojiyo caalamka oo dhan isku raacsan inagu meelo badan ururkooda waxa ku jirta nolol maalmeedkeena saylada xoolaha shaqaalaheena u badan iyagu tagaa suuqyada wax lagu iibiyo ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu iibiyo kala adeegtana dadkeena inta u badan iyadoo shaqo tagaa oo ka maarmi karaan hadda waxa loo baahan yahay kamaaran waagi nolosha iyo caafimaadka saynu ilaalinay in la isku waafajiyo waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amar kama bixin karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynaha waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka istaag taagno goorana ku xidhan waan aqbalaya cid ha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisu raacaya jananku tiisu raacaya saxafigu tiisu raacaya ninka baayacmisharkii toodu raacaya sidaa waxa ku jirta danteena saarnood galo laga bilaabo imika maalin walba guddigan waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmay oo ku saabsan caafimaadka duruufo adag bay ku jirtaa dadkeena boqolkiiba waxa laga yaabaa 60 magaalooyinka jooga qutul maalmeedka waa shimbiraha kale way kala ahaan iyo arsaaq iyo fataax sayradu tagaa suuqyada kale u tagaa wuxuu la soo noqon soo hida markaas ay dawladda haweeney wada shaqeeya kayd kale wuxuu yaaleen dees mooda xir karo laakiin waa warti qaadana marka haddii alla yiraahdo talaabooyinka saarnoo soo socda iyagu maanta laga bilaabo si bay u hawlgalayaan goboladana oo laga soo inay degmooyinkan